filimka ayaa ku bilaabanayo ayadoo dadka qaar ay eranayaan gaarigaasoo afarta dhinac aaga hareeraysan yihiin darbi. Kadib gaariga ayaa kasoo degaya nin la yiraahdo 47 oo ah dilaay. Kadibna meesha wuxuu ka bilaabayaa dagaal, wuxuuna meesha ku laanayaa ciidankii weerarka kusoo qaaday dhammaantood ayuu dilayaa. Kadib waxaan baranaynaa barnaamij wakiil oo bilaabanaya 1967. Dr. Litvenko ayaa bilaabay in la sameeyo wakiil aan naxaynin, baqaynin ama dareemaynin xanuun, xitaa aan lahayn naxariis. Barnaamijkoodu wuxuu ahaa mid guuleystay, laakiin sida ay dowladdu ogaatay muddo kadib, barnaamijkoodu waa la xiray. Kadib mararka qaarkood dadka qaar ayaa isku daya inay bilaabaan barnaamijkan. Dhakhtar sare ayaa qaaday mas'uuliyadda kuma guuleysan barnaamijkan. Dhakhtarka sare wuxuu bilaabay raadin Dr. Litvenko. Waxba kama ay helin Litvenko isku dayo badan ay ka sameeyeen. Muddo kadib waxay ogaadeen Katia oo ahayd gabadha oo dhalay Litvenko. Dhakhtarka sare wuxuu rumaysan yahay in ay ka heli karaan gabadhiisa xogta dhakhtarka. Waxay bilaabeen raadinta Katia. Kadib sheekadu waxay u wareegaysaa waqtigan xaadirka ah. Dhakhtarka sare ayaa weli raadinaya Katia. Isla markiiba waxaa bilaabanaysa qayladhaan. Ilaalada meesha joogta way dhaqaaqeen ayagoo dhakhtarka ka saaraya meesha. Caqabado badan kadib waxay gaareen meel kale. Muddo kadib waxay ogaadeen in dadkii joogay in uu soo weeraray wakiilkii dilaaga ahay Mr. 47 oo meesha ku laayay dadkii meesha jooga dhan oo wada baaba'shay. Wuu soo jeestay oo wuxuu arkay wakiilkii 47. Kadibna wuxuu ogaaday in uu jabsaday nidaamka amniga shaybaarka. Wuxuu ku qasbay dhakhtarka in uu halkaani yimaado. Waxaan ka soo qaadanaa wada hadalka 47 iyo wakiilka. Ma rabiyo inuu dib u soo celiyo nidaamka halkan. Kadib 47 doctorka wuxuu weydiinayaa meesha uu ka heli lahay Katia. Wuxuuna leeyahay waa inaad ii sheegtaa, haddaad ii sheegi wayso adiga ayaa maqan. Kadibna doctorka wuxuu u sheegayaa meesha ay joogto Katia. Kadib wuxuu damcayaa in uu soo weeraro 47 wuxuuna soo aadayaa xaggii 47. Kadib wuxuu ogaanayaa miino in lagu xiro meesha hubka ugu jiray. Kadibna miinadii ayaa la kicisa. 47 markuu arko waxaasi dhan wuxuu go'aan ku gaaray in uu ka soo baxo dhismahaasi. Waxaa soo kala cararaya ciidankii dhakhtarka. Kadib 47 ayaa mid meesha uga laanaya. Kadib waxaan arkaynaa madaxa ururka oo lagu soo muujinaya qaybta xigta. Wuxuuna rabaa inuu dib dambe u isticmaalo barnaamijka wakiilka. Wuxuuna rabaa in uu ka faa'iideysto. Madaxu wuxuu ogaanayaa sidoo kale geerida dhakhtarka. Kadibna wuxuu soo daba dhigayaa Katia ilaalo kor kala socoto ilaaliso amnigeeda. Muuqaalka xiga waxaan arkaynaa in lagu muujinayo sawirka Berlin. Kadib Katia waxay ku mashquulaysaa sawirkii oo waxay ka fiirinaysaa qoraalada meesha ku qornaa ayay ku mashquulaysaa. Katia oo raadinaysa nin wato dukumeentiyo, xitaa ma taqaana ninka magaciisa ama waxa ayada kala dhaxay ninka ma garanayso. Ayada ninka ma taqaan, laakiin xasuusteeda ayaa waxay u sheegaysaa inay ninkaani raadiso. Kadib Katia ayadoo u socota gurigeeda ayaa waxay dareemaysaa in ninkaani naagtiisa si xun u dilay. Sidaas darteeda waxay sameynaysaa booliska ayay fariin u diraysaa. Kadib ninka wuxuu ogaanayaa in booliska warbixintiisa loo gudbiyay. Kadibna naagta ayaa meesha iskaga soo cararaysa. Waxaa halkan ka soo muuqanaya 47 oo ka baxaya saldhigga tareenka ee Berlin. Marka uu tago 47 qolkiisa, isla markii wuxuu bilaabayaa raaditaanka Katia. 47 wuxuu la xiriirayaa madaxdiisa. 47 wuxuu qandaraas ku soo qaatay in uu dilo 2 qof. Kadib markii madaxdiisa taleefanka ay ka baxdo, 47 wuxuu sameynayaa isla markii wuxuu raadinayaa Katia. Dhinaca kale, Katia way ogayd in maalin un qof uu soo raadi doono oo halkaani ka soo raadinayo. Kadibna meesha ayaa ayada iskaga soo fogaanaysaa. Iyadoo meeshaas ka soo qaanaysa wixii dukumeentiyo oo dhan oo u yaalay waa in iskaga soo tagaysaa. Kadib 47 wuu ogaanayaa Katia meesha ay joogto. Wuxuu ka ogaaday khariidadda. Katia waxay gaartay saldhigga tareenka markii ay ka bixisay hotelka. Waxay kula kulantay ninkii ay ka cararaysay. Ninkani waxay u maleysaa in uu yahay basaas, way ka shakisay. Ninkan ayaa magaciisa wuxuu ku sheegayaa John. Katigna wuxuu u sheegayaa inuu rabo inuu ayada u badbaadiyo.
waayo nin ayaa rabo inuu ayada oo dilo. Kadibna waxay leedahay muxuu aniga oo ii diliyaa, waxaana halkan u joogaa inaan adiga ku badbaadiyo. Dhanka kale waxaa meesha soo galaya 47 ayaa imaanaya. Kadibna 47 meesha wuxuu ka bilaabayaa xabad oo waxa ka dhex bilaabanayso isxabadeen. Johnna wuxuu isku dayay inuu meesha kala soo cararo Katie, xitaa haddii ay ku carareen masaafo dheer 47 ma uu joojin cirsigooda. John ayaa xabad kor u tuuraya asigoo u dhow safaaradda, sababtaas aawadeed ciidamada ayaa soo qabtay. Kadibna way xireen oo gudaha ayay gelinayaan. Markuu arkay middan 47 wuxuu go'aansaday inuu safaaradda gudaha u galo. Intaasi kadib saraakiisha waxay su'aal weydiinayaan Katigna waxay u sheegaysaa in uu jiro qof rabo inuu ayada oo dilo. Kadibna waxay u sheegaysaa saraakiishii John inuu ahay qofka ayada badbaadinaya, ma ahan qofka ayada dil rabay. Katie waxay ogaatay in dhawaan uu imaan doono 47 oo soo gali doono gudaha safaaradda. 47 ayaa sidoo kale wuxuu soo galayaa gudaha safaaradda asigoo wato qori ugu jiro boorso. Kadib waxaa qabanaya ciidanka ammaanka. Kadib markay ogaadaan inuu qori wato, kadib 47 ayaa la xirayaa, katiina ayaa gacanta loogu jeebeenayaa. Wuxuu middaani u sameeyey u soo galo safaaradda. Markii la xiray kadib, marka ay damceen askarta inay weydiiyaan su'aal, wuxuu bilaabay askarta dhan inuu laayo. Markuu askarta laayay kadib wuxuu iska furayaa katiinkii asigoona soo aadaya dhinacii Katie. Kadib markii uu ogaaday John in uu laayay 47 askartii joogtay meesha, kadib wuu soo cararayaa iyo Katie meesha ay iskaga soo baxeen oo waxay ku soo baxsaneen gaari boolis ah. 47 wuxuu soo qaadanayaa qori shamshutro ah ayuu ku soo dabaracdeysanayaa John iyo Katie. Ugu dambeyntii John iyo Katie meesha ayay iskaga soo baxayaan. John markuu gaariga soo raaco, Katie wuxuu aaga sheekeynayaa qofka ay raadinayaan inuu yahay aabbaheeda. Intaasi kadib wuxuu u sheegayaa in aabbaheeda oo bilaabay sanooyin ka hor barnaamij dilaagii halista ahay, ma baqan oo ma naxan. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu barnaamijkan asiga oo soo gabagabayn karo. Wuxuu kaloo u sheegayaa inay rabaan dad inay bilaabaan barnaamijkan, wuxuuna leeyahay waxaa baabi'i kara ama joojin kara aabbaha oo kaliya. Ugu dambeyn 47 wuxuu gaariga John iyo Katie ka soo tooganayaa meel fog, xabaddaas oo ku dhaawacmayso Katie. Sidoo kale Katie aabaheed wuxuu sameeyey tijaabooyin fara badan. Tani waa sababta Katie dareenkeeda ugu xoog badnaaday. Waxay ogaanaysaa dabeecado gooni inay leedahay oo bini'aadamka ka duwan. Waxay weydiinaysaa wax ku saabsan aabbaheeda inuu wax ooga sheego. Marka waxay gaari doonaan aabbaheed 47 ka hor in lagu jiro waqtigan Katie. Kadib Katie waxay ogaanaysaa aabbaheeda inuu qabo kansarka sanbabada. Maqalkaasi kadib waxay aragtaa dukumiintiyadii la aruuriyay. Waxay ogaatay halka uu joogo aabbaheeda waqtigan. Kadib inta uu su'aal weydiino 47 ayaa gudaha soo galaya, ayaa albaabka haraanti ku soo jibinaya. Markuu 47 gudaha u soo gala, isla markii wuxuu ku bilaabayaa xabad ayuu ku dhufanayaa John asigoo la ridaya xabadda. Intaasi kadib wuxuu meesha ka soo kaxeynayaa 47 Katie ayadoo mir daboolan. Kadib markii Katie ay soo naaxday, waxay arkaysaa ayadoo ku xiran kursi. Sidoo kale 47 wuxuu u sheegayaa in uu rabin inuu ayada oo dilo. 47 wuxuu u sheegayaa Katie inay gacanteeda hore u dhaqaajiso. Kadib Katie markay gacanteeda dhaqaajisay, waxay soo xasuusatay carruurnimadeedii. Waxaa kaloo ay ogaatay in ayada iyo 47 ay meel ku soo wada koreen yaraantoodii. Katie aabaheeda ayaa ku tuuray 47 meel nabad ah markii la soo weeraray. Kadib Katie hooyadeed waxay u dhimatay xabad lagu dhuftay aawadeed ayay u dhimatay. Katie waxay kaloo ogaatay ayada iyo 47 inay isku mid ay yihiin. Intaas markuu u sheegay 47 oo ka soo tagaya Katie, wuxuu kaloo u sheegayaa inay iskaga furto farsamadeeda xiriga ku xiran kursiga. Dhowr ilbiriqsi kadib Katie xiriga ayay iska furaysaa oo way ku guuleysanaysaa inay iska furto. Intaasi kadib Katie markii xiriga iska furto, waxay ogaanaysaa in ay tahay sida 47 oo kale. Katie waxay 47 u sheegaysaa in ay raacayso, kadibna asiga wuu ka diidayaa, waxayna u sheegaysaa in ay ka mid tahay dagaalkani. Kadib way is soo raacayaan Katie iyo 47 oo ayagoo isla socda. Katie waxay dareemaysaa in 47 la soo weeraray. Ciidanka soo weeraray 47 waa ciidanka ururka, waxaana la socda John. Intaasi kadib 47 wuxuu sameynayaa ciidankii soo weeraray ayuu mid mid u laaynayaa. Katie way yaabtay markay aragtay John oo nool. Ka hor intaysan wax fahmin, Katie
John ayaaba weeraray oona suuxiyey. Waxa kadib Katia waxay ogaanaysaa inay John oo ahay khiyaanoole. Intaasi kadib Katia waxay xasuusinaysaa tababarkii ay qaadanaysay carruurnimadeedii. Katia waxay kaloo fahmaysaa in 47 uu u sheegay runta. Waxaana la ogaanayaa John inuu u shaqeeyo ururkaas. Ben buu u sheegay Katia. Intaasi kadib waxaa meesha isku dagaalaya John iyo 47 ayaa dagaal culus ku maraya. Intii dagaalka lagu jiray 47 wuxuu ogaaday in uu tijaabiyey ururka John. Waa sababta jirka John oo u xoogsaday kadibna wuxuu wataa jaakad aan karin xabadda. Tani waxay ahayd sababta oo weli John oo u dhimanin. Kadib 47 wuxuu suuxinayaa John asigoo kaashanaya Katia. Tagista meeshan Katia 47 ayaa weydiiyey aabaheeda meesha uu joogo. Kadib Katia waxay leedahay 47 waxaad ii ballan qaadaa inaad aabahayga aad dili doonin. Waxay u sheegaysaa in uu joogo Singapore. Kadib John wuxuu soo aadayaa hotelka ay deganayd Katia asigoo baarayay qolkeeda. Marka uu arkay dukumeentiyada ku yaal darbiga wuxuu ogaanayaa Lifton inuu joogo Singapore. Kadib John madaxdiisa wuxuu u sheegayaa Lifton inuu joogo Singapore. Muuqaalka xiga waxaan arkaynaa 47 iyo Katia oo kasoo muuqanaya eelaboorka diyaaradaha. 47 ayaa ogaaday in ururka ka ogaan kara CC kamerada ku xiran eelaboorka. Sidaas darteeda wuxuu leeyahay Katia waxaad iska ilaalisaa CC kamerada inay ku qaban. Dib Katia meesha ay iskaga soo bixisaa ayadoo iska ilaalinaysa CC kamerada. Sidaas darteeda ururka way ogaadeen meesha ay joogaan Katia iyo 47. Marka ay imaado Katia hotelka mar kale waxay baaraysaa 47. Katia waxay su'aal weydiinaysaa 47 oo waxay leedahay ma tahay bini aadam. Sababtoo ah waxaan maqlay wakiilada ma laho wax naxariis ah. 47 midaasi jawaab uma hayo. Kadibna meesha ayuu kasoo istaagay asagoo dhahaya waa inaan seexdaa. Maalintii xigta waxaa soo weeraraya ciidanka ururka. Waxay ku dhammaanaysaa dhowr ilbiriqsi gudahooda. 47 ayaa ka tegay markii ay wadanayeen Katia. 47 ayaa ka qaadanaya wiishka markuu saarnay ilmo yar daawada neefta. Katia waxay u sheegtay inuu aabaheeda qabo kansarka sanbabaha. 47 wuxuu u maleynayaa inuu u baahnaan karo daawadan waqti kasto. Kadib waxay gaareen meesha uu ku nool yahay Lifton oo ku yaalin ubaxyo fara badan. Liftonka ayaa meeshan wuxuu u doortay si uu ugu neebsado. Katia aabaheed waxay leedahay maxaad iiga tagtay waayo waxaan ahay gabadhaada. Kadib wuxuu leeyahay Lifton ma rabo madaxayga in dhibaato kuu soo gaarto. Katia marka ay maqashay hadalka aabaheeda waxay ogaatay inay noqon karto hooyadeeda hooyo wanaagsan weligeed. Sababtoo ah ayada waxay rabtaa inay hesho ilmo. Waa sababtoo u sameeyay Liftonki Katia. Liftonki wuxuu hore u sii sameeyay sidii uu ogaato khataraha ku soo socda Katia. Sababtoo ah wuxuu rabay inay noolaato Katia. Muddo kadib waxaa imaanaya 47. Markuu arkay Liftonki in hor imaaday 47 wuxuu dareemay in uu rabo 47 inuu asiga dilo. Kadib Liftonki waxaa soo weeraraya ciidamada ururka. Markaas ay u carareen dhankii baabuurta la dhigay baakinka. Kadib ururka ayaa kasoo dabagalaya Mr. 47 meesha baakinka ayagoo weerar culus ku soo qaadaya. Kadib mootooyin kasoo daba qaadanaya. Dadka soo weeraray waxaa ka mid ahay John. Kadib 47 mar kale ayaa meeshan lagu badbaadiyay ayadoo la isticmaalaya awoodda Katia. Liftonki wuxuu ogaaday in ay rabaan ururka in ay sameeyaan wakiilo dib dambe ayagoo isticmaalayo barnaamijkan. Katia waxay ku fikiraysay in ay soo afjarto madaxa ururka. Markuu maqlay midaan 47 wuxuu u sheegay Katia inay dhici karo in la joojiyo madaxa ururka. Madaxa ayaa ku nool meel adag. Wakiilo badan ayaa isku dayay inay soo afjaraan madaxaas. Ugu dambeyntii ayaga ayaa la laayay. Waxay hareereeyeen gaarigii. Waxaa gaariga ka soo degaya 47. Katia ayadoo xabad furaysa ayay gaariga ka soo degaysaa. Kadib Katia aabaheeda xabad ay lugta aga dhacaysa. Kadibna wuxuu u sheegay inay ayada meeshan iskaga fogaato. Dhanka kale waxaa la soo muujinaya 47 oo jeebka u gelinaya Liftonki daawadii neefta oo ka soo qaaday wiilkii yaraa oo saarnaa wiishka. Kadib wuxuu meesha ka soo wadaya Katia. Kadib waxaa imaanaya John. Katia oo diidaysa in ay ka tagto aabaheeda oo qaylinaysa. Kadib 47 Katia ayuu suuxinaya. Marka ay ka tagaan meesha 47 iyo Katia, John wuxuu meesha ka soo kaxaynaya Liftonki wuxuuna keenayaa ururkiisii. Qaadashada Liftonki John wuxuu weydiistay inuu isticmaalo barnaamijka xiga.
markii la jildilay oo la garaacay Litfunk waxba uma sheegan. Dhanka kale waxaana la tusiyaa 47 oo ka dhagaysanaya dhismo ayaga u dhow. dhab ahaantii 47 ayaa gelgeliyay raadraacayaasha neefqaadayaasha. raadiyaha dartiis wuxuu raadiyay Litfunk. muddo kadib waxaa imaaday madaxa 47 sidoo u bedelo Litfunk. madaxa wuxuu isku dayay inuu ka baqo asagoo iska dhigaya inantiisa. 47 wuxuu maqlaa cod. sidoo kale 47 wuxuu ka jabsaday nidaamka amniga. wuxuu leeyahay waxaan ku sii doonaa Katia beddelkeeda waa inaad isiisaa Litfunk. 47 ayaa u sameeyay midaan sababta oo wuxuu rabiyaa inuu helo Litfunk oo u dhammaystira mashruuciisa. wax fikrad ah ma aysan ka qaban gabadha Litfunk in ay tahay ayada laftirkeeda wakiil dilay oo halis ah. ayada waa nooca horumarsan weli. laakiin 47 ayaa waxaa u sheegayaa in ay tahay wakiil ku qarsoon Dana Katia. Katia sidoo kale waxaa soo noqday dareenkeeda. ay ka war heleen duulitaanka diyaarad soo gashay gudaha. kadib diyaaradda waxaa ka soo degaysay Katia oo la dagaaltamaysa ciidanka oo dilaysa mid ka mid ah ciidanka. markaasi kadib meesha waxaa ka bilaabnay dagaal. kadibna Katia aabeeda waxaa loo soo wadayaa dhankii diyaaradda. markii ay arkeen xaaladda 47 iyo qaar ka mid ah ilaalada waxay isku dayeen inay kaxaystaan madaxa ay geeyeen qolka amniga. 47 sidoo kale wuxuu soo weeraraa madaxa John asagoo ugu fadhiya kursiga qolka gudaha. wuxuu ku soo ridayaa xabadaas oo gacanta u dhiganaya John. weeraro badan kadib wax saameyn ah kuma yeelan 47. 47 wuxuu ahaa nin caan ah waa ku itaal darnaay dagaalka. 47 wuxuu arkay fiilooyinkii derbiga kadibna asiga dhan wuxuu soo afjaray John oo wuxuu ku dilay fiilooyinkii John. Katia ayaa halkan soo gaartay sababtoo ah wuxuu rabaa inuu qaato Litfunk oo iskaga tago meeshan. Katia iyo 47 waxay u baxeen banaanka. markii halkaas tagan dhammaan waxay soo afjareen ilaaladii madaxa. laakiin way celi waayeen madaxa. isku dayo fara badan ay sameeyeen. madaxa ayaa ka dhaqaaqay dhismahan oo dhan ayuu ka fogaaday. intii meesha lagu jiray waardiye ayaa xabad wuxuu ku soo ridayaa Katia xabadaas oo isku dhigaya 47. mar ayay si wada jir waxay xabad ugu fureen waardiyihii ku dhuftay xabadda 47. kadib Katia waxay u soo cararaysaa dhankii aabeed waxaa lagu qaatay diyaarad. kadib Litfunk waxaa arkaya gabadhiisa oo murugaysan. kadib Litfunk madaxa wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay gabadhaada. haddii aniga aadan gacanta kugu hayo gabadhaada way ii imaanaysaa. kadib Litfunk wuxuu go'aan ku gaarayaa inuu gabadhiisa u huro naftiisa. kadibna wuxuu taabanayaa bahashi neefta. kadib diyaaraddii ayaa meesha ku qarxayso. dhanka kale 47 wuxuu wacayaa madaxdiisii waxaanu u sheegayaa inuu dhintay Litfunk. kadibna waxay u sheegayaan in howlgalka oo jiro. kadibna taleefanka ayuu aaga baxaya asoon u jawaaban. taleefanka ayuu tuurayaa. sidoo kale Katia waxay bistoolo ku qabanaysaa 47 waxayna u sheegaysaa in uu khiyaaniyo ku shaqaysanay. asigana wuxuu u sheegayaa in uu khiyaanan laakiin ay ahayd muhiimadda in saan uu sameeyo waayo wuxuu rabay inuu soo afjaro barnaamijkan. intaasi kadib meesha ayay iskaga soo tegaan oo waxay arkayaan nambarkii xigay oo ahaa 48. kadibna meesha ayay ku dilayaan. ha hilmaamay in aad daawato calaamadda subscribe-ka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelin. waa ku mahadsantahay daawashada.